السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتها بونتا وضيالي دلهانتين بملك استوجوكتان أو موقعيga iyo maqalkayga weydii ka soo gaarayo waxa la gaaray xilliga idin soo jeedinteennay barnaamijkeennii waayaha suxufiga oo marti noogu yahay wariye kamida wariyeyaasha Soomaaliland wariye Sadaam Saciid Cabdi Sadaam waaye arag oo ka soo hawlgalay TV-yada Saab TV Badda Cas 24 dhigta jaamacadda Hargeysa Faculty of Journalism intaas daawadayaal hadii ay kaga nimaadno waxaynu guda gali doonaa barnaamijkeena waa tahay Sadaam ku soo dhawow barnaamijka waayaha suxufiga aad iyo aad baan u mahadsantahay walaalo Samira aad baan ugu dhaweey Sadaam aniga iyo daawadayaasha hadda xog kooban naga siiso taariikhdaada Samira waad mahadsantahay adiga iyo barnaamijkaagan waayaha suxufigaba oo runtii ah barnaamij hadii aad kobciso aad sii wado oo aad bulshada aad ku barayso suxufiyiinta Soomaaliland iyo bulshadoodaba anigu ka Sadaam ahaan saxaafada taariikh dheer kuma lihi muddo 2 sano iyo bad ama 2 sano celceliso man hadda ku jira markii ugu horeysay saacad sheegtay waxaan ka soo hawlgalay telefishinka Badda Cas dhowr bilood sagaan joogay markii dambe waxaan ku xigsiiyay telefishinka Saab oo isagana muddo 2 bilood aan joogay taariikhdaydu Hargeysa baan ku dhashay ku soo barbaaray qayb kamid ah noloshaydii inta waxaan dhigtay jaamacadda Hargeysa markii hore waxaan dhigay jiray kulliyadda engineering-ka walaal markii hore aan jaamacadda Hargeysa lahayn kulliyadda saxaafadda mar dambe lagu soo kordhiyay tan kadib waxaan u bedeshay kulliyadda saxaafadda imikana waxaan gabagaba ku sii dhow isla kulliyadda saxaafadda waa tahay Sadaam xilmaayad ku soo beertay warbaahinta Soomaaliland Samira san hore ku sheegay arda taariikhda si badan kuma lihi saxaafadda waxaan ku soo biiray oo telefishinka Badda Cas waxa ka horeeyay kulay qofku waxyaalaha jira marka qaar si volunteer ah oo u soo shaqeeyo like website ayaa ka horeeyay website aflax la dhaho iyo mid kale oo ilays la dhaho kuwaas markaan ka soo shaqeynayay markii dambe marka laga tago kulliyadda Siram oo aan markii ugu horeysay ahayd meeshii aan ku soo barbaaray oo aan ku soo bartay qayb kamid ah cilmiga saxaafadda kadib markii iyada ka soo baxayna waxaan si toos ah uga hawlgalay telefishinka Badda Cas oo aan dhowr bilood joogay markii dambena telefishinka Saab waqti xaadirkan kula hadlayana kale wariyayska madax banaan baan ahay meel lama joogo waatay waxaad nooga warantaa waayaha saxaafadda ee Soomaaliland iyo Soomaalidaba maadaama in muddo ku soo jirtay saxaafadda dadku waa laba qof weeye laba qaybood ku kala qaybsamaan qof isagoo saxaafadda in badan ku soo jiray ayuu haddana mararka qaar aanu awood u lahayn in waxyaalo badan uu ka sheekeeyo qofna waa qof saxaafadda isagoo in yar ku soo jiray yani waxyaalo badan isma bardhigi kara Soomaaliland saxaafadeenu meelo badan bay kaga horeysaa marka loo eego gobolada kale Soomaaliya hadii Puntland noqoto haday Muqdisho noqotoba gudaha Soomaaliland hadii aynu ka yara hadalno Samiray Soomaaliland saxaafadeedu waa xor laakiin taabil cagsigeeda haddana si kale ayaan xor u ahayn laakiin waxaan aad ugu hambalyeeynaa suxufiyiinta sanad kastaba ama kulliyadda Siram ka soo qalin jabinaysa ama kulliyadaha kale ka soo qalin jabinaysa ee ku soo biiraya saaxadda saxaafadda waxaan rajayn doonaa insha Allah bal inuu saxaafadda Soomaaliland ay wax ka bedeli doonaan Sadaam waa kuma saxafiga ka gudbi kara amba waa u adkeysan kara caqabadaha warbaahinta Samira su'aal fiican runtii marka la isweydiinayo su'aasha ah oo annagana barigii aan saxaafadda soo baranay su'aasha ugu horeysay macallin farfar leh iyo macallin Xamse waxayna soo weydiiyay suxufiga dhabta ah dhowtole waxyaalo badan yani u adkeysan kara waa kuma waxaan aaminsanahay ka shakhsiyaanka Sadaam ahaan suxufiga dhabta ah ee wax kasta u adkeysan kara waa suxufiga markii hore saxaafadda ku soo galay han iyo himilo ee aan ku soo galin siyaabo kale oo qaldan marka qofku markii hore saxaafadda ku soo galay bulshadaada wax u qabo halkaana ka gaad waxyaalo badan oo la soo darsi lahaa wuu adkeysanaya barashada saxaafadda iyo shaqada warbaahinta xiriir noocee ayaa ka dhaxeeya Samira waxa ka dhaxeeya ma kala maamaanba 100% laakiin inagu ku Soomaaliland ahaan waxaad moodaa in qofku hadii uu kamaradii u barto TV uu heli karo uu ka hawlgalana in inta ugu dhantay laakiin dowladda la xumaataayo waxyaalo badan baa ka hor imaada caqabado badan oo aan ka hor iman qofkan saxaafadda bartay ayaa hadda ka hor imaada qofkii ku galay bilaa aqoon salaano kale intuu kamaradii bartay uu toos u galay saxaafadii TV uu ka hawlgalay ama idaacad ama wargeys caqabada hadda uu la kulmayo kan kale saxaafadii bartay lama kulmayo mana kala maarmaan wax kasta Samira wuxuu u baahan aqoon
tiktoorku qof ma qali karo ilaa aqoonteeda uu soo barto sidoo kale saxaafaduna maadaama lagu tilmaamo seef laba af leh seefta labada afta leh waxaa ka badbaadaya qof aqoonteedii soo bartay maxaa sababa in ay dhalinyaro fara badan ay ku soo biirayaan goobaha warbaahinta wallahi anigu laba sabab man balaan isleey ku sababay takoobaad waxa weeyaan yani qofkiyo laga yaabaa inaan warbaahintii hamigiisaba ahayn laakiin shaqo kale oo uu waayey darteed ayuu muslimaan waxa ku dhaantay adigu dadka kamarada iska iibsata TV-gaagii adeera lahaan intaad tagto aad ku jeediso ood ka hawlgasho halkaana waxaaga yar ay kaa soo galaan mid kale la way jirtaa sababta ugu soo badanayaan adduunka uu isbedelayaa adduunka wuxuu noqonayaa in qol yar oo dee laska wada dhexarko marka qofkii actifnimadiisa iyo maskax furnaantiisa ayaa qofkii mararka qaar ku kalifaysa inuu bulshadiisa dhibaatada la kulmaysa bulshadan dulman ayuu qofku oranaya mad bulshadaada wax u qabatid kadib wuxuu oranaya qofkii aad u qabatid ma xumay laakiin xageed wax ugu qabanaysaa markaas oranaya madaxa lagu qaatay adigoo marka hore warbaahinta intaad soo gasho xagga bulshada wax u qabato marka dhalinyaro badan waxa ku kaliftay inay warbaahinta soo galaan inkastoo qaar badan ay magacdoon yihiin badankoodu laakiin magacii balaas sharaftii balaas ummadii wax loo qabanayo wixii way isla socdaan tahay Sadam Saciid Cabdi Sadam Wayaare waxa tahay suxufi ka soo hawlgalay TV badan intii aad warbaahinta ku jirtay wax ka yaabiye ma aragtay ama waa la yaabto wallahi tikole yaabku iska baday adigu yaab badan ma aragtay dhammaantiin waan wada arno TV-ga aad caawinta dul fadhiisato aad eegto waxa ka baxaya yaab kugu filan laakiin waxyaalaha aan oran karo way ugu yaab badantay waxa weeyaan taan adigu waxaad tahay suxufi ka ugu yar saaran laga yaabo inuu 6 bilood soo qaato aqoona waxyaalaha tabay ugu yaab badan waxa weeyaan qof aan weligii meel saxaafadda lagu baran aan soo gelin waxa taa 6 bilood ama siirama ama meel kale aan ka soo bixin ayaa wuxuu isku dayayaa inuu war xasaasi ah oo isagu aan cidna loogu tagino isagu qoro sameeyo ummadii u tabiyo marka hadhow toole ama qolooyinkii warka laga soo duubaa xanaaqaya ama dadkii loo tabiyay si qaldan u fahmaya ama TV-gii bay sumcad darro ay ku noqonaysaa dadkaasna haddii TV noqoto haddii jaraa'id noqoto haddii website noqoto way ku badan yihiin warbaahinta dalkeena waxa ugu fara badan telefishinada maxaa sabab u abadan kartaa waa runo gabar dhawto aan boosaasa tagay waxa ku badan halka idaacada Puntland waxa ku badan idaacada waxa ku yar TV-yada laakiin inaga marka idaacadaheeni waa la naga xayray oo dahal idaacadu baa just muxuu ahaa qaranku baa shaqaynaysaa sababta marka TV-yadii ay u badan waxa weeyaan qofkii awood ma la idaacadu ku furto dawladdu ba ka xayirtay marka inuu TV furto dadku waxay telefishinada warbaahinta ay ku dhaliilaan in aanay tayadooda shaqo aanay wanaagsaneyn maxay adiga kula tahay dhowr iyo 20 TV ka hawlgala Soomaaliland hargeysa lafteeda waxa laga leeyahay TV-da ugu badan hargeysa laga leeyahay intooda ugu badan marka TV la furayo kuma fikiraan ma jira wariyaal tayo leh oo TV-gaas uu heli karo oo ku dhaqaajin kara taa kuma fikiraan laakiin waxay ku fikiraan ma jira qof kamarada intuu ku xambaari karo suuqa ku tagi kara ku jeedin kara ku soo duubi kara hadhowna lacagta ku soo qaadi kara TV-gii ku keeni kara laakiin laga fikiraba wariye aqoon leh ma helaysaa cameraman aqoon leh ma helaysaa tafatira aqoon leh ma helaysaa TV kasta haddii uu helo dhowr qof يعني سوق عامسين مساكو رقاقيو marka sababta TV-yadeenii ay isku midka ka yihiin xagga quality-ga iyo wax soo saarkiiba waxaan jirin oo ku yar wariyaasha aqoonta la dhamaantood intaas hadaynu kaga yarana sano dhankiisa ee sideen maalmihii ugu dambeeyay waxa safar ku tagtay Boosaaso balaaniga iyo daawadayaasha wixii aad ku soo aragtay caqabadihii aad kala kulantay waad mahadsan tahay Samiray waarno khamiistii dhaweetaan ka soo galay waa safar ilaash bil iyo 5 cisho qaatay waxaan baxay bishii koobaad 8deedii waxaan soo noqday bishii labaad markii wiigii ugu horeeyay dhamaaday wiigii labaad bilowgiisii khamiistii dhaweetaan imay kolle marka la leeyahay marka meel ka tagto inkastoo de meel aan tagay meel ay Soomaali joogto oo aan ka bixin xayndaabkii Soomaalida haddana wax badan baynu kaga duwanay iyaguna ay kaga duwan yihiin tusaale ahaan markii anigu safarka aan tagay xaggan ka dhaqaaqay askarta Somaliland iyo askarta xagga markaad u gasho farq weyn baa labadooda kala dhaxeeya marka xaggan sii socoto waxaad moodaa inaad tacaadiyaad badan kala kulmayso askarta xaggeena xuduudda joogta xaqiiqatan wax kasta inuu laga sheega fiican
intii Soomaaliland sii socday haddii xataa kaarka suxufiga aan tuso iyo haddii wax ka tusoba waxa suuragala aniga iyo dadka rakaabkaba xataa ciibana qabnaa haddii xataa si fiican loo baarayo oo de laakiin markaan soo bardhigo labada askar Puntland marka xuduudkeena galay iyo Soomaaliland ba runtii isbeddelka horta wuxuu ka bilaabmayaa xaggaas ka bilaabmaya markaan ka baxnay Soomaaliland xuduudeedii aan Puntland u galnay istab kasta marka si fiican loo baaro kadib wana laga qaadaa inkastoo xataa cadays noocaas xataa muu jirin waan isweydiiyey waxaas maxaa dhacay isbeddelka intaa leeg muxuu yahay de kolley wallahi inagu dee suxufiyiin baynu inaan baadno mooye si degdeg ah uga jawaabi kari mayno maxaa kala duwanaansho ah ee u dhaxeeya saxaafadda Soomaaliland iyo tan Puntland waad mahadsantahay Samiray qodobkaas inaan aad wali u iftiimiyaan doonayay kolley su'aashaan aad ku mahadsantahay weydiisay imka anigu markii Hargeysa ka tagay umaan tagin yani hawlgal aan Puntland ka soo fulinayo faamigeyga qayb ka mid ah xagga deegaanka soo booqanaan u tagay shaqo suxufinimo maan tagin haddana dee qofkii goobjoog baan ahayo waan garan karaa farqiga u dhaxeeya waxa dhacday Samiray markii xagga aan ka tagay xagga aan tagay saxaafadda Soomaaliland xaggan horta xorbi ku haystaa xorka sokow nimca wali waxa la nuqsaanteed suxufiga xaggan isagoo 100% xoriyad ku haysta haddana heshiis lama aha dawladii yani heshiisku markasta inay heshiis noqdaan qasab maaha laakiin waxaan ka wadaa macaamalaadkii fiicnaa kama dhaxeeyo inta xaggaasaan tagay ninka wariyaha ee Puntland jooga ma arag Muqdisho laakiin ninka wariyaha ee Puntland jooga 100% uu ka qiimo badan yahay kana sharaf badan yahay ninka wariyaha bartan kulan Soomaaliland su'aal bad weydiinaysa sabab taana bartkaan soo arkay salahan waxa dhacday habeen ana suuqa maraya oo asxaabtay soo macsalaameynaya ayaa waati Puntland gaar ahaan Boosaaso waati qof lagu dilay ninkii DBWell amaankii ayaa khalkhalay suuqa warbixin ka yar sameeyay qoraal aan la soo wadaagay Facebook-gayga dadka xaafadayda nimi koodi iyo barkii saacadu markay ahayd ayaa waxa la kulmay askar xaafadii u soo dhacday waa laga furay baabka qaarna way soo dhaceen qolkay igu soo galeen aniga iyo laba inaan ila hurdayba waan la qaaday waa koodi markii habeenimo jeelkan la geeyay maanta sin ID cardskaygi waxay saxaafadda kulay waan baqay runta fiicane waxa xisbi Soomaaliland baan ogaa qaab in suxufiga looga dhabo halkaan waxa sadeed marka jeedin mala suxufi baan hay laga yaabaa in qaabka looga dhaqmay bal ardayda run kaga bax oo waxa sheegay waa sidii jeelka la igu geeyay jibciid oo jimcihiisii buu ahaa marka waan xidhnaa asxaabtayda sawirada aan la soo galay soo macsalaaminay ayun baa i weydiiyay teleefankaygii iyo meel aliyaal meel aan ka dhacay waxaan nasiib ku lahaa xaafadayda baan tusay oo maalinkii ay igu yimaadeen xaafadii igu yimaadeen jimcihii gelikii dambe xaafadii yimaadeen markii waxay la hadleen eegada yani sababtaan ku leeyay suxufiga xagga jooga waxa uu ka qiimo badan yahay xaggan jooga markiiba waxay la hadleen gudoomiyaha gobolka la hadleen gudoomiyaha gobolka aniga ma yaqaan aqoon ma leh inuu arag kaliya waxay ku dhaheerun nin anaga suxufiyo anaga marti noo ah ayaa xiran gudoomiye maxay ku dhacday wallahi markii intuu xanaaqay wuri waxa tagtaan jeelka lagu xiray taga kadibna soo garaaca jeelkii aan cidna loo ogolaan in ay soo galaan ay ID cardku waxay tusaan ID cardada saxaafadda markiiba inta dib looga degay baa soo galaa maxaad baahantiin gudoomiyaha gobolka ma soo garaacay taliyaha loo tagay ha ana hadaba OB-ga kuma qoran suxufi waan kula waan qariyay yani identity-gii kadibna jeelkii waxay soo istaagay anaga suxufi nooma xidhna way yaabeen hadus anaga suxufigu yani 2 saacadood tan yar baa ma sii jeel lahayn inaan Monday noo xidhnaa suxufi laga yaabo ma ii widi xiray mar dambe wax la baaray waa la soo helay waa kaniyo walaal isagu noo sheegan suxufi markiiba jeelka askarti taagneed taliyihii wixii raba isku yaayay anagu suxufi ninkan noo sheegan suxufiinta anagu waanu qiimeynaa jeelkayga uma quudno mana xidhno meel gaar ah ku xidhnaa hadii dambi uu naga galayna waanu baadnaa kadib waanu soo deynaa gudoomiyaha gobolka damaanadii wixii ba qaaday sidii baa lagu soo daayay hore hadii aad sii sheegi lahayd dabcan oo oran lahayd suxufi baana waxaan filayaa inaan taasi dhacdo waaniga kugu yiri waan baqay sababta fiicane Soomaaliland qaab baa suxufiga loo dhaqmaa waana kula askariga iyo dawladda iyo suxufiga connection fiican kama dhaxeeyo suxufiga waa la tujuubaya waa la xirayaa laba bilood buu bilaa sabab sax xinaanaya kadib baa hawshiisii la gelaya ana tibay ku qufulneed daawadayaasha sidoo kale xiliyada daawanka laftarkaygu su'aalo fara badan baan u haynaa loo siiday soo dhawaada waa leenahay bismillaah waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka daadiyaha barnaamijka waayaa suxufiga waliba tana sadam waa yar caaw si aad ugu faraxsan in barnaamij lagu wareysanayo aan qayb ka nahay ma jirtaa marka laga tago shaqada suxufinimada iyo warbaahinta shaqo kale oo xayeysid oo jeceshahay inaad gaadhid mustaqbalka dhow insha Allah
tamarka ugu horeysa aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta marti ku ahay barnaamij lagu wareysanayo Sadaam waayo arag in badan baraha bulshada ka muuqday farxad weyn bay tahay in Sadaam su'aal baan weydiinayaa Sadaam ka saxafi ahaan maxaad kula talinaysaa dhalinyarta iyadu imika tababarka saxaafadda qaadata aad ma santiin dhamaantiin baa su'aalaha aad wadaagteen dabcan isku day inta aqoonteeda aan ka jawaabo su'aasha hore ay weydiisay inantaasi kolay qofku hadii uu imka shaqo gacanta ku hayo waxa laga yaabaa saad sheegtay inuu hiigsanayo meel kale inuu gaaro runta fiican aanu markii hore saxaafadda waxaan soo galay inaan xaga iyo jaranjaro ay noqoto aan siyaasadda ku gaaro kolay oromaya ilaa heerkaas aan doonayaa laakiin horta bal jaranjaro inay noqoto aad baasan tahay sidoo kale su'aasha kale ay walaashay weydiisay iyaduna warun kolay dad badan saxaafadda imka baranaya way jiraan aan ugu hambalyeynaya waliba waxaan kaloo ku dhiirigelin lahaa markaad dibloomada qaadataan markaan waxaan kula talin lahaa oo aan oran lahaa bulshadiina wax u qabta aniguna kolay waxba idima dhaamo isku mid baynu nahay laakiin laba dhamaanteen baytan gacmaha isqabsano baynu dadka wax u qabanaynaa marka dadaala aqoontana markaad dibloomka qaadataan degree ku xigsiya ilaa PhD aqoontu ma dhamaato waad wadi kartaan haddii Allah awood la ku qoray Sadaam waa maxay guusha ugu weyn ee laga gaaro saxaafadda maanta jawaabta kooban ku siiyo waa wajigaaga baasaboor noqda baasaboorka caadiga ah lagu dhajinayo wajiga laakiin markuu wajigiisu noqdo caan qofkani laakiin caanimo ku noqdo dhinacii wanaaga iyo xushmada iyo karaamada boqol suxufiyo caan imka jira laakiin wax kale caan ku noqday okay marka qofku markuu wanaag iyo karti iyo dadaal caan ku noqdo bulshada kii ugu hooseysay ilaa kii ugu sareeyay wanaag ku soo dhaweynaya sharafna ugu taagaya dawaka marka wajigaaga baasaboor noqda yaani meel kasta oo Soomaali ay degantahay maaha meesha aad degantahay inaad soo koobto meel kasta oo afka Soomaaliga laga hadlo in laga soo dhaweeyo ayaan ku talaa qofka suxufiga inuu hamigiisa noqdo kolay barnaamijku guntiga gabagabadu maray haddaan xagan fursad aan ku siiyo yad xagan ka salaami lahayd marka hore waxaan salaamaya marka adiga laga yimaado ka soo koow waxaan salaamayaa marka waalidiinta dhaxta laga yimaado kolay markii saxaafadda aan soo galay dad baa soo gacan qabtay meel baan ka soo bilaabay waxbarashada waxaan ka salaamayaa laba macallin runtii aad qaali igu ah macallin Faisal Falfarle oo isagu ilaa jaamacadii xataa noo raacay oo laba semester noo dhigay jaamacadda iyo macallin Xamse oo runtii isagu qaybta practicalka bariga aan dhiganaynay siram wax badan naga kaabay oo xataa aqoonta inta ugu badan imkaan isticmaalay aan ku hawlgalno waxaan waa kaawatii siram ma arkaano aqoonta imika suxufiyiinta xataa badankooda aqoonta ay ku hawlgalaan waa 6 bilood ee siram ay ka qaateen wayaan أنا كعانة مالي روتي قالوا معلم برت عن سلامية وحن كلام سلامية هذا قف ودهم عن سلامية سرقل معه إنك استوى مرعية يموقية بتقعنا وحن اللي هي على هذا الشرف. إذا وضيال إنتاسي وحينوجو إيه برنامج كأني وياها الصحفية أو مرتي نوجوها صحفي سدام سعيد عبدي سدام ويا أرق. وضيال وحنا إلاوي دولين وبرنامج كقيب لحالة قاتي حمزة محمد جامع دينا كمرضى حمزة حديق يسدو كلام محمد برالة أنا قايد لسه عسيني برنامج كسميرة حسن هارون iyo waliba saxafiga igala qayb qaatay barnaamijka waayaha saxafiga aad baridii salaamina waxaan idinkaga tageynaa sidaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh